Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Akhyaarta horumarka jecel soo dhawaada dhammaantiinba ku soo dhawaada madasheena hoyga horumarka. Magacaygu waa Shaakir Akhyaar. Waxaan ahay samafale jecel dhalinyarada inuu ka caawiyo inay arkaan awoodooda waxqabad si ay u noqdaan dad waxtar leh biidnillaah. Waxaa mahad iskale marka koowaad mowlihii meeshaan nuu kulmiyey. Marka labaad waxaan rabaa adiga inaan kaaga mahad celiyo inaad mar kale madasheena soo booqatay iyo mahadsanid walaal. Haddii aad meesha ku cusub tahayna ku soo dhawow kanaalka kuna darso kama shalaayi doontidi insha Allah. Maanta waxaan idiin wadaa mowduuc farxad geliyo oona ah mashruucyada aan jecelahay waqti badan inaan geliyo. Mowduucaasna wuxuu ku saabsan yahay farxadda. Sida aan kor ama hoos ku qoray waxaa u jeedaa mowduuc maanta inaan uga dhignay intee farxadda dhabta ah waa farxadda dhabta ah ama runta ah intee laga helaa. Meesha laga hela hadduu Ilaahay idmo meesha koowaad oo ugu muhiimsan aan maanta muuqaalkan kuula wadaagi doonaa. Laakiinse intaan kugula wadaagin marka koowaad waxaan rabaa inaan kuu digo adiga aan kuu digo marka koowaad oo aan ku iraahdo farxadda iyo muhiimadeeda gadaal ay ka imaan doontaa. Laakiinse meelo kaleeto oo farxadda laga raadiyaa jiro. Marka dhaliil iyo waxaa jirto run badan oo qaraar oo maanta meeshaan insha Allah idinkula wadaagi doono aan idin weydiin doono. Haddii aadan macnaha qalbi ahaan ama maskaxiyan u qaangaarin ama aadan jeclayn dhaliisha inaad maqashid iyo waxyaabahaas laga yaabo inay adiga kugu saabsan tahay oo macnaha qayb ka mid ah ay kaa soo geli karto. Haddaadan weli diyaar u ahayn walaal inaa arrintaas maqashid fadlan iska sii carara ku dhihi lahay haddeer fursadaa ku siinaa ilaa iyo saddexaa kuu tirinaa. Waxaa waaye runaa ku jirto runta marmarka qaarkood way qaraar tahay. Qofkan u jeedaa waxaa jirto dad Ilaahay u dhaliyay inay dhaliisha qaataan ee dhinaca wanaagsan ku fahmaan ee wax ka bedelaan iyo dad aan u dulqaadan karin. Marka haddaa ka mid tahay dadkaas aan u dulqaadan karin runta lacal haddaa ku jirtid waaye haddii kaleetan maasha Allah dadka fiican ku jirtaaba. Waxaan ku siinaa fursad ilaa saddexaa kuu tirinaa iska sii carara ku leeyahay ninka u digay kuma dilin 1 2 3 fakatax waa fakatay soo maahan way fakadeen maasha Allah qofkii loogu talagalay. Adiga laakiinse hambal yaa ku leeyahay weli waa joogtaa. Waxaa ku jirtaa ay ka dhigan tahay marka dadka jecel in ay ogaadaan fikirka saxda ah iyo meelaha fiican ee mudan in farxadda laga raadiyo ahna meelaha farxadda laga helo oo muuqaalkan aan maanta idinkula wadaagi doono. Marka intaan horta horeeto su-aashaas aniga kaaga jawaabin adiga waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal. Su-aashaasna waxaa waaye intee isleedahay farxadda intee laga helaa. Adi ahaan farxadda intee ka helaa ha aaminsan tahay bal iiga jawaab. Su-aashaas adiga waa ka jawaabtay jawaabaha ku jawaabtay laga yaabo inay ka mid tahay in aad tiri farxadda waxaan ka helaa ama waxaa laga helaa lacagta. Lacagta wayna farxad gelisaa maasha Allah aa lagu tilmaamo soo maahan. Marka qaar ka mid ah horta hore jawaabtaas waa run. Laakiinse lacagta dhibaatooyinka ay leedahay kuu sheega. Dhibaatada koowaad horta hore waxaa waaye lacagta lagama dhargo. Lacagta lagama dhargo. Ninkii 10 haysto 20 uu rabaa. 1000 xataa dhehe 10 kun ma arkin oo 10 kun ninka haysto 20 kun uu rabaa. 20 kii haystay 50 kun uu rabaa. Kii 50 kun haystay 100 uu rabaa. Kii 100 kun haystay milyan uu rabaa. Kii milyan ka haystay 10 milyan uu rabaa. Iyo wixii ka sii socod. Qof walbaba ibna aadanka horta hore ma dhargo. Lacagna waxa laga dhargo horta hore ayada ugu daranba. Qof walbaba haddaa farxadaada ku waxaysid inta aad sii ceerisid aa rabtaa. Marka dadku waxay yiraahdaan milyanka koowaad sida lagu helo way adag tahay. Maalinta milyanka koowaad gaartid milyaneer aa noqoto Soomaal meel waa fariisan kartaa. Laakiinse maalintaas ay kuu sii bixaysaa baab. Waxaa lagu leeyahay milyanka koowaad intee kugu qaadatay ka yar ay kugu qaadanaysaa milyanka labaad. Milyanka labaad raadi. Fakataxa leeyahay sidii milyanka labaad ku raadinaysaa. Marka dhibaatada koowaad oo jirto waxaa waaye taas horta hore lacagta lagama dhargo. Midda labaad waxaa waaye lacagta ma kuu gedi karto akhlaaq kuma gedi karto camal fiican kuma gedi karto caqli saliim ah oo toosan ayadana kuma gedi karto cimrigaaga maalinta uu dhamaado sikin kuuguma dari karto oo cimrigaagi kuma dheerayn karto lacagti kuma gedi karto. Marka lacagta xagga ugu tagno faa'iido daradeedu waa ogaanay farxadaada lacag haddaa ku xirtid waxyaabahaas oo dhan iyo kuwo kaleeto oo haddan tusaale usoo qaadanayn in aadan heli karin oo aadan lacag ku gadan karin. Midda labaad marka maxaa waaye amase waxaad tiraahdaa waxaa ka mid tahay
qodobka aan leeyahayna oo kaleeto qodobadan oo kamid yahay qofka aan qalbiyan iyo maskax ahaan fadlan u diyaarsanayn meeshan qodobkan ha iska sii cararo fursad kaleeto waaye marka mase waxaa kamid tahay dadka yiraahdo farxadda waxaan ka helaa aniga wiil iyo gabar waxaa rabtaba ahaaw waxaan farxadda ka helaa in aan qof oo ajnabi kala nahay lama dhihi karo macnaha haddaa wiil tahay waxaan farxad ka helaa gabdhaha inaa la seexdo oo macnaha sariirta aa la wadaago haddaa gabar tahana sidoo kaleeto xaaraan iyo xalaal waxay rabaan ba ha ahaadaan macnaha waxaa kasoo qaadaynaa dadka farxaddooda ku xiro shahawaadka nafsadooda ku jiro macnaha lust ha la dhaho desire shahawaad hawo waxaa rabtid ku magacaabo luuqadaha kaleeto iyo qof walbaba sida u yaqaan laakiinse damiirkaas iyo shahawaadkaas naftaada ku jiro oo kuu qurxinayo wiil haddaa tahay gabdhihii kuu qurxinayo gabar haddaa tahana wiilasha kuu qurxinayo oo kaleeto qofka ku raadiyo oo nafsadiisa ku qanciyo meelahaas oo kaleeto ka raadiyo inuu macnaha farxadda ka helo haddaa tahay dhibaataa ka jirta ayadana dhibaatada ka jirta waxaa waa horta hore qof walba oo dunidan joogo oo qurux badan iyo mid kastoo aad ka heshid oo nafsadaada ee jamataba lama seexan kartid xalaasha marka dhinaceeda laga fiiriyo nimanka waxa loo baneeyay waa xadidan yihiin waa afarti adigoo maanta soo guursatay toddobadii adoo ka bixinba ama saddexda aa ka bixinba arooska aa midda guursanaysaa afartan kaleetaa ku arkaysaa afartankaas kaleetaba inaa la seexataa rabtaa macquul miyaa macnaha afartankii intaa midaan saddexda maalintii saddexda aheedba afartaba inta furtid haddana afar kale raadsid afartankii arooskaas kugu arka waxay leeyihiin ninkan waxaa waaye acuudu billah looma geli karee habarteeday ka tahay inuu kugu adkayaan laga yaaba haddii kuwa kaleeta aa heshid xataa adiga laftirkaaga farxad kama helaysid maxaa yeele waxaa is og tahay farxaddaada inaad dumar kaleeto iyo dad kaleeto ku xirto oo dadkaas aa raadinaysa gabar haddaa taha sidoo kaleeto ayadana waxaa waaye hal ninaa lagu baneeyey soo maahan xalaal marka laga fiirinayo waaye halkii nin marka lagu baneeyey maalinta aa guursatidba saddexdii markaa dhamaystidba ninkan waxaa leedahay wadaayo warqadeeda ii dhiib yaa oda hebelkaas kaleeta arkooda inaa sii socdaa rabaahay ayada laftigeeda hadduu kuu dhiibo xataa maasha allah nin fiican yahay ciddadiyaa kugu xirnoo waqti inuu cayiman inaa sugtid waaye farxaddaada saddexdaas bilood haddaa nin ku xirtay ma qancin kartid haddee meeqaana wadi kartaa ninka haddaan yiri ninkii gabdhaha intuu guursan karo macnaha waa uu iska daba cararayo inuusan fursado badan u helinaa laga yaaba gabadhina sidoo kaleeto ayadana waxaa jiro waxyaabo badan oo ka xadidaya gabadhii in ay nimankii eelo macnaha ciddadiyaa ka mid ah uur haddee yeelataa ka mid ah iyo waxyaabihii kaleeto fasaxyadii ay galayeen oo yaryaraha ka mid ah marka waxaa meeshaas ka dareemaysaa 24 saac 365 sanadka maalmihiisa oo dhan in aadan farxad ka helaynin haddaa farxaddaada ku heshid aa ku xirtid qof kaleeto in aa la seexatid tan kaleeto waxaa waaye qofka aa jamata laga yaabo oo macnaha aa istiraba qofkan ka salgaar inaa ku qanci weysid macnaha wax yariiska bacdiba inaa ku qanci weysid teeda kaleeto waxaa laga yaabaa qofka aa jamatid inuu kaa diido uu ku yiraahdo may iga qalee walaalay ama walaalow habarteeday ka tahay xalaal iyo xaaraan waxaa rabtidba aniga diyaar uma ihi adiga inaa google kula qaybsado marka taasna meesha way ku jirtaa tan kaleeto xaaraamta ah ilaahay kuma daro laakiinse dabcan way jiraan dad dhinaca xaaraanta ah ku raadiyo xaaraanta macnaha dhibaatooyinka iyo waxyaabaha isku wada raacsan yahay waxaa ka mid ah sikinka ee macnaha shahwaadkaas ee dhammaadaan daqiiqada kadib shalaygaa bilaabanaya shaydaanka meeshuu ka dhex baxaa runtiyaa meesha soo istaagayso qaladaadka iyo waxaa samaysayaa arkaysaa qof iimaanle iyo qof kaleba haddaa tahabo macnaha kuwa iimaanka lehna maasha allah waaba shalaykooda waa iska sii wen yahay kuwa kaleetana xataa hadday ismaweysiiyaan hoos ahaan way ka ogyihiin waxaan ay sameeyeen wax sax ah ama nafsadooda ku farxad gelin kara inaysan ahayn marka dhibaatadaasna way jirtaa oo adduunyada keliya ahna dhibaatadaas ma ahane aakhirana macnaha camal fiican uma sii dirsanin oo intana farxaddii yareed oo sikimada aheedaa waxaa ku doorsatay aakhiradaadii ayada laftirkeedana murugo gaar ahay kugu sii abuureysaa oo farxad dhab ah oo joogto ah meeshaas inaadan helayn caqli ahaan way iska caddahay marka markii uu odahebelku ku diido ama gabadha ay ku diido aad jamatay oo jaceylkiina lagu gacan seero murugo ayadan meeshaas way kaaga bilaabanaysaa qodobka saddexaad marka waxaa kusoo gabagabeyneyno oo qodobadan farxadaha meelaha laga helin waxaa iskugu darnay magac jago kursi iyo caanimo dhalinyarada ayaantaan dambe waxay ku magacaabeen caanimo qof kasta wuxuu ku leeyahay caan inaa noqdaan rabaa waxaan horta horete wax nafsada oo bili-aadanka ku jira waaye dhalinyaradan siday social media u bilaabatay aada ugu soo batay oo soomaalida bis ma ahan laakiin aadanahoo dhanaa la iska jeclaysiiyey jagada kursiga iyo caanada magacaan ma arkinoo marka
aan ku bilaawno macnaha magaca ama kursiga ama jagada aan ku bilaawno. Qof kastaba garaadaha ku tixan iyo magaci iyo kursiga iyo waa iska jecel yahay. Adduunyada marka qof awood leh oo wax u taliyo oo jago haysto iyo ma arkino magac yaa ugu weynaa dadka soo maray. Kursigaas iyo waxaa dhihi karnaa marka awooddaas iyo quwaddaas qof gaaray adiga Nabi Suleymaan xagga iska dhig. Nabi Suleymaan asaga xagga iska dhigaynaa saldanadiisii aadanaha kaleeto markii loo soo laabto Fircawn ugu awood badnaa. Fircawn kibir iyo awood meeshuu ka gaaro wuxuu sheegtay ilaahnimuu sheegtay. Anigu wuxuu dhahaa qofkaa rabo waa ciqaabi karaa, qofkaa rabana waa cafin karaa. Cidda wax iga qaadi karto aniga iga awood badan oo iga sareyso yaa waaye ma jirtuu yiri. Ninkii heerkaas gaaray Fircawn ahay aawa maanta intuu ku dambeeyey awooddiisa aawi quwaddiisa aawi magacu uu sheegtay iyo ilaahnimada aawi maanta ilaahay cadaabta ha ku fogeeyey cadaabta ka hooseysa uu ku jiraa. Marka awood iyo magac iyo kursi tan kaleeto xataa dad Soomaali ah ama muslimiintan u soo laaban qofkii madaxnimo loo dhiiba ama mas-uuliyad qaada ama jago qabto oo si qaldan uga faa'iideysta magaciisa macnaha ama dad ku khiyaano ama dadka meel aan sax ahayn ugu waco ama mas-uuliyadda loo dhiibay si cadaalad ahayn aan u fuliyin wuxuu ka mid yahay qiyaamaha dadka ugu horeeyo oo la cadaabayo. Marka ayadana macnaha faa'iido kuma lahan. U soo galno marka dadkan kaleeta caanimada waxa la dhahaa. Caanimada oo maasha Allah la wada jecel yahay dadka ay wada jecel yihiin oo magaci meel ka soo gelayso. Caan qof la yiraahdo horta intaan dadka idin weydiin calanka ay idin weydiiyo calanka adduunka uga caansan yaa waaya dhihi laheedan. Calanka adduunka uga caansan waxaa dhahday waxaa waaye kan Mareykanka ku qiyaas Soomaa sax waaye kan Mareykanka waxaa la yiraahdaa calamada adduunka asaa uga caansan. Waxaa ku siinaa marka fursad kaleeto oo ninkii adduunka uga caansanaa Nabi Maxamed iyo Nabi Ciise kaalinta koowaad kaalinta labaad ku jiraan maadaama ay anbiye ay yihiin ayaga waa ka reebaynaa oo labada diin ugu waaweyn nebiyadii lagu soo dejiyey ay yihiin labadaas nebi waa ka reebaynaa. Laakiinse dadka caadiga ah qarniga lasoo dhaafay qarniga 21aad iyo qarniyada kaleeto oo dhan wixii lasoo dhaafay oo dhan qofka uga caansan oo kaalinta saddexaad ku jira ama dadka caadiga ah kaalinta koowaad ugu jiro yaa waay. Calanka Mareykanka waa kuu sheegay meel dheer ha ka raadin. Michael Jackson aa dhahday. Michael Jackson oday hebelkaas waaye. Michael Jackson wuxuu ahay aabihii istijabinka fanaankii falaqda fantastic ku ahay king of pop ee dhaheen boqorkii boodboodka waaye iyo heesaha ma arkino uu ninkaas ahay aa lagu magacaabo. Marka aabihii istijabinta fanaankii falaqda fantastic ku ahay boqorkii maxaa la dhihi jiray boodboodka king of pop Michael Jackson oo magaca iyo maal meeshaas ka gaaray adduunka qofka uga caansan noqday 50 milyan iyo maxaa la dhihi jiray adduunyo muuqaaladiisa iyo waxyaabihiisa dhan ee dhaafeen intuu ku dambeeyaa maanta maanta asagana sidoo kaleeto caradan iyo ciidan aa ku dul cararayso ka hooseeya muslimiin gaal wuxuu ahaa wuu dhintay hadduu muslim ahaa waxaa leenahay Allah u naxariisto hadduu gaal ahaana uma duceyn kartid qof gaal ah oo dhintay. Laakiinse ninkii magac meeshaas ka gaaray farxad ma ka hel aniga jawaabta aan kugu wado waxaa waa maya. Magaci iyo caanimada uu meesha uu ka gaaray farxad kama helin. Maxaana caddeyn kuga ah waxaa caddeyn u ah ninkaas asaga oo macnaha inuu ku qanci waayo quruxda uu qaadir siiyey oo uu gaaray wejigiisa inuu qorqoro tinta inuu jilciyo waxaas xataa iska dhaaf wejigiisa macnaha inuu qorqoro uu madowga uu ahaa uu ku qanci waayo caddaan iska dhigdhigo uu isqorqoro oo macnaha qanaaco iyo farxad uu ka raadiyay. Midda labaad waxaa waaye daroogo muqaadaraad iyo maandooriyaal uu wuxuu farxad ka raadiyey iyo si uu maskaxdiisa u dejiyo ilaa iyo daroogadaas iyo maandooriyahaas iyo muqaadaraadkaas markii dambeeta ee sabab u noqotay in uu dhinto siday dhaqaatiirta noo sheegeen. Adigana Google-ka waa ka fiirin kartaa Michael Jackson markuu dhintay maxay dhaqaatiirta ku sheegeen. Waxaa arki doontaa daroogo iska badiyey oo u dhintay ayadoo lagu dhahay. Qof faraxsanna daroogo ma raadiyo macnaha farxad daroogo kama raadiyo. Qof faraxsan oo jirkiisa ku qanacsan inuu isqorqoro iyo adduunyo kaleeto farxad kama raadiyo. Marka meeshaasna waxaa kaaga cad Michael Jackson oo magaca adduunka ninka meesha ugu sarreysay ka gaaray ah dadka caadiga ah in uusan asagana magacaas iyo maalkaas xataa maalka loogu daray uu ku qanci waayey uu farxad uu ka heli waayey. Adiga oo Soomaali ah marka maxaa kuu soo hara walaalkay ama walaashay
meeshaasoo kaleeto horta oo macnaha magac xumaan inuu qof Soomaali ah ku gaari karo inuu jiro uma maleynayo, uuna jiri doonan uma maleynayo. Ilaahayna ma gaarsiiyaa leh macnaha xumaanta intaas la eg in ay Soomaalida ku caan baxdo waa wax laga xumaado waaye. Ilaahay naguma keeno marka qof kasto oo macnaha dhalinyaro ka mid ah carruur iyo ciroolaba kulli kaleetana aan ku darno oo ka mid ah oo barahan bulshada ku jiro oo macnaha caanimadan la sheegayo ma ujeedaa haddeer xataa oo awal qofka xumaanta faafiya ay takoor lahu ah dadka uu ka soconaa xumaantiisa ma ujeedaa caan kuma ahayn xumaantaasoo dadka uga soconaa laakiinse dadka haddeer xumaanta faafinayay aaba xumaantiiba caan ay ku yihiin iyo dadka kaleeto waa isku mid wax ay ku kala socan yihiin ma jiraan. Waxa u digaya marka waxaa waaye aniga walaalaha gabdhaha ama wiilasha ah ee dhalinyarada ah iyo xataa kuwa kaleeto oo dhalinyarada dhaafay oo ayaka laftirkoodan ilaahay macnaha khaatimada u suubiye oo ayakana macnaha xumaanta dhinacooda ugu jiraan dhiiqada lugaha kula jiraan intooda dad badan ay kusoo xirmeen oo xumaantaas ugu soo xirmeen in ay ma arkin xumaantaas haduu ilaahay idmo ay ka soo baxaan intay goor tahay ee dhalinyarada yihiin ama aysan dhimanin inay dhiiqadaas lugaha kala baxaan ee xumaantaas ay faafinayaan mas-uuliyadda dadka ka saaran ee aqoonsadaan ay joojiyaan in ay baraha bulshada xumaanta lagu faafinayo ay ka joojiyaan dhalinyarada intooda kale kuusoo harta oo ku haminayso baraha bulshada waxay rabtaba ha noqotee macnaha xumaanti xan mala fiirinaayo qabiila lacay ma la fiirinaayo fanaanimo iyo waxaan hees iyo falaq waayo ma la fiirinaayo waxaa waaye madaxweyne mar idhaha ma ahaan jirno Soomaalida marka horta hadda ilaa haddana way tahay maasha Allah qof walba jagadaas iyo waxa soo sheegno iska jecel yahay kuwa kaleeto dhalinyaradan waxay dhahaan haye hibil ka caan waayo waa hal idhaho hal kala kiciyo muuqaalada xumaanta waxay isku dayayaan in loo faafiyo ama ayakana awoodooda ay ku faafiyaan marka wax fiican ma ahan adinkan waxaa idinku gidigaa oo idin leeyahay meeshaas aad ku socotiin ama meeshaas meel fiican ma ahan magaca iyo maalka yaa bixiyo mawlaa bixiyo soo maahan ilaahaa bixiyo ilaahaa naga sarreeyo ilaahayna wuu ku siin karaa haddii aad bulshada usoo gudbinaysid wax qiimo leh waxa qiimo leh ama maadi ha ahaadaan ama diini ha ahaadaan waxay rabaan ha ahaadaan aniga meeshan diin kuma soo gudbiyo maadigaasaa ku dhex jirnaa laakiinse muhiim waxaa ah maadiga aad soo gudbinaysid waxyaabihii gaalada loogu talagalay maadaama dad muslimiin aa u gudbinaysid inaad ka dhex saartid diintina meeshaan mamnuuc ay ka tahay maadaama aa maadi ka hadlaya ma dhihi karta ayada laftirkeeda maxaa yeele anaka shuuciyiin ma nihi oo dad muslimiin aha nahay oo diinta iyo anaka kalama harayno marka maadiga waxaa usoo gudbinaysid mawduucyadu way badan yihiin mawduucyada heedheh way badan yihiin wax aa ka raadsataa wax wanaagsan inaad dadkii aa wax ugu soo gudbisid magac iyo maal ballan waaye kadib way ku imaanayaan hadduu ilaahay idmo haddaa weysid maahano magac iyo maalka waa imaan weyse adoo wanaag gudbinaya aa magac iyo maalkiyaa imaan waaye labadooda midaa weyse ama labadayba waa weyse ayada laftirkeeda alxamdulilah inaa dhahdi waaye maxaa yeele imtixaan iyo xujo uu ilaahay kaa badbaadiyey maxaa yeele magacan iyo maalkan waxaan lagu siiyey qiyaamaha aday xujo kugu noqonayaan haddaa si xun u isticmaashid oo macnaha sida wanaagsan aa u faa'iidaysan weysid marka xujadaasuu ilaahay kaa badbaadiyey adi laba goorlaba marka waa faa'iiday haddii aa macnaha adoo wax wanaagsan soo gudbinayay magacii iyo maalkin uu kuu imaado alxamdulilah waaye alshukrulilah waaye haddii uu macnaha oo kuwii kaleeta uu kaa badbaadin ma arkin uu kuu imaan waayo magacii iyo maalka ay kuu imaan waayaan laakiinse qof shakhsiyadaada wanaagsaneed iyo wanaaggaa gudbinaysay uu macnaha ummadda u haro ayadana alxamdulilah waaye xujadaadina waxaa qiyaamaha kuu noqonaysa wax wanaagsan intaa noolad inaad dadka usoo gudbinaysay maalkeedii iyo magaceediina ayadoo ka fiican insha allah qiyaamaha ku helaysaa qodobka ma arkino maanta aas-aaska u ah marka meelaha farxadda laga helo oo wanaagsan qodobadii xumaa waa markaynu meelaha aan laga helin farxadda dhabta ah meelahaas waaye oo waxyaabo yaryar oo nafsadaada aad ugu sii qanciin oo aan joogto ahayn laakiinse waxa joogtada ah meelaha farxadda laga helo qodobka ugu muhiimsan qodobkan waa haddeer kula wadaagaa waa qodobka xiriiradaada in aad wanaajiso xiriirada marka way badan yihiin xiriirka koowaad oo rabto in lagaa wanaajiyo inaa wanaajiso waxaa waaye xiriirka adiga iyo ilaahay idinka dhexeeyo waa adiga iyo ilaahay xiriirka idinka dhexeeyo ciyaal dugsileed marka ahayna waxaa dhihi jirin ilaahay telefoonkiisa ma taqaana ilaahay telefoonkiisa ma taqaana markaasaa waxaa leeyahay ilaahay telefoonkiisa waxaa waaye 2 4 4 3 4 oo ah salaad subax oo 2 ah duhur casir maqrib iyo cishe ilaahay toosa ugu wacaysaa telefoonka toosa ula xiriiraysaa balaayi iyo baadari iyo adduunyo kaleed wax idin dhexeeya ma jiraan adduunyada dadka diimaha kaleed wax kale soo ma aaminsano
laakiinse adiga haddaa salaada markaa ku jirtid adiga iyo ilaahay sheekha adduunka uu weyn iyo imaam shaafici iyo qof kaleeto idin dhexeeya iyo nebi idin dhexeeya ma jirto adiga iyo ilaahay toos iskula xiriiraysiin marka fursadaas ma ujeedaa muslimiinta bis ay haystaan salaadaada yar lee ka bilaabo insha allah waxyaabaha kale ayaga iska hagaagayaan xiriirkaaga adiga iyo ilaahay meeshaas wanaajintiisa ka bilaabo midka labaad waxaa waa xiriirka adiga iyo nafsadaada ka dhexeeyo nafsadaada macnaha xumaan haddaa ku wadido maanta dhan qashin ku daldalaysid ama meesha xun ee ku fartaba aad ka daba raacaysid farxad kama helaysid inaad farxsanayna macnaha meelihii hadeer tusaalayaasha hadeera kusoo marnay marka teeda kaleeto waxaa xataa adoon qurun ku dhex jirin laga yaabo nafsadaada inaa isliidid oo aaminsan tahay qof xun inaad tahay ama oo waxtar lahayn oo aa isliidid isliiditaankaas laftiiski lama ogolo nafsadaada farxad ma gelinayso nafsadaada ma ujeedaa ama maskaxdaada canjilad waaye waxaa ku duubtidayna aaminaysaa marka hadalla fiican iskugu sheekay negative self talk ee dhahaan ingiriiska hadalladaas xunxun ujeedaa aniga doqon ah iyo ma awoodi iyo alla aniga dabaalnimadeeda iyo waxaas caadada ka dhigatay carabkaaga uu caadada ka dhigtay lama ogolo waa aaminaysaa maalin dambeed ha dhihin insha allah caruurtana ha ku dhihin asxaabtaadana ha ku dhihin adigana ha isku dhihin marka nafsadaada hadalla fiican kula hadal si ay u aaminto xiriirka labaadoo inaa wanaajis laga rabo waa kaas ka saddexaad familkao dhan waa isku qabanaynaa familkaa ugu horreeya laakiinse waalidiinta ugu horreeyaan waalidiinta hooyadaa iyo aabaha ugu horreeyaan hadday nool yihiin oo adigana caasi tahay khatara ku jirta hadday nool yihiin laakiinse oo ma arkino wiil ama gabar baariyad ah u tahay oo duceysanayso maasha allah jannadii adduunka haysataa ka faa'iideyso meeshaas ka wad qofka laakiin waalidiintiisa ay dhinteen ama asagoo caasi ah ama hadda caasi hadduu yahay kasoo labaa ku leh insha allah fursaddan ka faa'iideysto xiriirka adiga iyo waalidiinta wanaaji familka macnaha ha qofka guur lehna sidoo kaleeto xaaskiisa ha wanaajiyo gabadhina ma arkino xaajigeeda maasha allah ha wanaajiso gurigiina guri janno ha noqdo awlaadaada maasha allah si fiican u kori hadal fiican kula hadal wax fiicanna ku tarbiyay walaalaha kuu soo haray sidoo kaleeto idinkana iswanaajiya macnaha dad oo xumaan iyo maxaa dhihi jira caay walaala ku ah oo isneceb ha noqon hadduu ilaahay idmo inta saaxiibo inaad noqotiin waajib ma ah laakiinse wanaag ku kala maqnaada intaa kala maqan tihiin isxushmeeya hadduu ilaahay idmo isna qadariya marka waxaa dareemay inuu mikrofoonka iga maqan yahay maanta dhan intaa hadlayay mikrofoonka lii marka waxaa ku leeyahay ugu dambeyntii xiriirka ama ugu dambeyn midka ka horeeya waxaa waa xiriirka adiga iyo asxaabtaada idinka dhexeeyo inaa wanaajisid asxaabtaada ma arkino iyo bulshadaba kulligoodba isku qabta asxaabtaada iyo bulshadaada oo nabigu laba jeer wuxuu yiri dadka waxaa ugu khayr badan midka bulshada anfaco mar kaleetan wuxuu yiri dadka waxaa ugu khayr badan qofkii carabkiisa iyo adinkiisa afkiisa iyo adinkiisa laga ammaan helo waxaa waaye carabkaagana ha laga ammaan helo dadka ha caynin ha xumeyn ha xamanin gacantaada iyo lugtaada iyo madaxaagana ha laga ammaan helo qofkii dhib ha ugu geysanin oo macnaha waxa waxyeeleen ayadan jir ahaan ha waxyeeleen marka sidaasoo kaleeta laga rabaa marka asxaabtaadii oo dhan iyo bulshada inteeda kaleetaba inaa intaas u samaysid oo inta aa wanaajin kartid aa wanaajisid inta kaleetana xumaantaada ay ka ammaan helaan afkaaga iyo adin mid yarta waxaa ka imaato xumaantaada in laga ammaan helo waxaa kuu rajeynaa marka farxadda dhabta ah inaa isla fahna meesheeda koowaad oo laga helay inuu yahay xiriirka fiican iyo xiriirkaaga inaa hagaajisid inaad xiriirkaaga hagaajisid ugu dambeyntii waxaan kugula talina ama waxaan kugula dardaarmaa in aad si fiican ugu fiirsatid meelaha ah farxadda ka raadinayso inaad si fiican ugu fiirsatid meelaha ah farxadda ka raadinayso meesha ah farxadda ka raadinayso waxaa waaye farxadda dhabta ah meesha ka raadinayso oo farxadda dhaxalgalka ah oo runta ah ma raadisaa oo qodobadan aan soo sheegnay sidoo kale xiriirka kamid ah ma raadisaa mase farxadda ah raadisid waxaa waaye farxadda dhaldhalaalka ah dhalanteedka ah oo aanan macnaha oo dhamaadkeedana uu yahay dhiiqo iyo dhibaato kaleeto uu yahay labadaas farxad marka farxadda raadisid inaa si fiican ugu fiirsatid waaye marka waxaan kugula talinaa inaadan raadinin farxadda dhaldhalaalka iyo maxaa dhihi jira dhalanteedka ah oo dhalanteedka ku dhisan oo dhamaadkeedana dhibaato iyo dhiiqo leh uu yahay ee aad raadisid farxadda dhabta ah oo fiican oo nafsadaada farxad gelin doonto adduun iyo aakhiraba hadduu ilaahay idmo marka waxaan ku leeyahay raadi dhadhanka farxadda dhabta ah kuna dheg insha allah farxaddaas dhabta ah waad ku dheefi doontaa kulanka kan xigay intaan ka kulmeen waxaan ku leeyahay balanteen waa
reeb